muslimad baan ahay sidaan doonaan u socon dharkaan doonaan xidhan meeshaan doonaan fadhiisan waxaan doonaan ismarin waxaan doonaan daawan waxaan doonaan ku sheekayn sidaan doonaan u dhaqmi muslimadna waan ahay ma isma qabato kala reeb labadaas ilaahay fadligii waa galab khamiis ah jimca soo galay waxaynu u ballansanahay ama aynu hore ugu ballansanayn inaynu muxaadara diiniya ka dhageysano sheekhuna alfaadil sheekh xuseen cali sugaan oo loo garan og yahay sheekh xuseen jabuuti macallimiinta inagu dadaalaysa hadday rag yihiin iyo hadday haween yihiinba ilaahay ha ka jazaaysiiyo iyaka inoo qorsheeyay inaan 3 maalmood halka nadwo laynagu qabto oo layna baraarujiyo oo laynoo nasteexeeyo oo la istilmaamo oo diinteenna macaana layna xasuusiyo mar walba qofka bini'aadanku xasuusin buu u baahan yahay bini'aadanka culimmadu waxay yidhaahdaan abuurkiisa dhan baa 2 qaybooda qaybna waa jasadka qaybna waa ruuxda weeyaan jasadku waa jidhka dhulka ayuu ka yimiday wixii dhulka ka soo baxana uu quutaa oo cunnada iyo acabka haddii jidhka laga daayo laga dhaafo qofku waxa uu noqonayaa qof taag yar buu noqonayaa oo jidhka bini'aadanku wuxuu quutaa waa tacaamka cunnada weeyaan لأن أصل كيسيبا ترابة آدم عليه السلام مركي إلهي وكهل يا أبور كيسا عراء يا لغا سمي جسد كيسا بني آدم كإنت كالور دانا وحا لغا أبوري وعراون من إذن بني آدم كاللغا أبوري لغا سمي أساس كيغو وحويان وفيتامي فيتامي قنا ونفقه ويان ونفقه عنده كتمادا عنده ندولك ومك صوبحا waxa bini'aadanku ay quutaan wax samada ka yimid ma jiro bariiska iyo cunnada iyo raashinka iyo masruucaadkaas oo dhan dhulkay ka soo baxaan dadna taas qofka bini'aadanka jirkiisu quutanaya qofka bini'aadanku hadii uu dhintana isagana waa la celino meeshii uu ka yimid jirkiisu ayaa lagu celin doonaa oo qofku markuu inaga dhinto waana ka dhulka u kala jaaxaynay ku celinayna ama shayga labaad ee bini'aadanka laga abuuray waa ruuxda weeyaan ruuxdu ilaahay xaqiisa nagaga timiday qofka bini'aadanku markuu dhintana ruuxdii iyo jirkiisii baa kala baxay bay ka dhigan tahay ruuxdii ayaa ka baxday jirka dadna ruuxdu halkay ku noqotay meeshay ka timiday bay ku noqotay marka horeba ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا إلهي جل وعلا وكيلها الروح ذيك ويدين يان وعدو الشكت الروح ذو أمر إلهي ويان روح ذو بنا آذن كان علم لما سنن إلا هدي لسيئين يربالي نسيبا إلهي يدي بركة الروح ذا حق إلهي ما دام يكتمدي أيضا قوت كيغو وحويان وأحكامت إلهي حقي سينوغت مدي وحوقوتا قوت روح ذو وحي قوت كدقتا وقرآن كويان وإلهي حسكيسا وصلاة وذكرك واستغفارتا ودعاء يا الله برقا وعباداتك قفك عباداتك مركو لي مادو روح دي سايا دسميسا روح ذو حتى يقعون دي أي هشنا قفك بن آدم مركز راح يسنو قبوبيا وماشى إلهي عز وجل ونوشاقي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا كو إلهي رميي قلوبتو دوحي كو حس شابا إلهي وإلهي ذكر جيسا محل قوضا وإلهي طاعت دي سويان ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا انتبهوا دقيه نفربا إلهي نليهي قلبك بن آدم كمن راحيستو إلا هدو راحيستو إلهي طاعت دي سكر راحيستا وماشى النبي عليه الصلاة والسلام ورنجري أرحنا بها يا بلال كعو أنك صلاة إنه راحة وجعلت قرة عيني في الصلاة ماشى عندها يقول كقبوبان قلبي يقول كرة حيستبو نبي يقول وصلاة لقي لي بلال وصلاة إنه راحة برسولك ورنجري
marka bini aadamka labada shay buu ka kooban yahay, jasadka iyo ruuxda. jasadku qiimo ma leh, hadduu dhinto waa ka ciidda la iskaga celinayo. haddii qofka bini aadanka la duugi waayo la aasi waayana oo bannaankaa la dhigana isla markaaba dirxi buu qofku noqonayaa. dirxi qofka jidhkiisu qiimo ma leh. waxa qofka bini aadanka qiimaha u yeelaya waa ruuxda. ruuxduna waxay quud ka dhigataa waa ilaahay taacadiisa. marka diinta lagugu yeedhayo, ee iimaanka lagugu yeedhayo, ee salaada lagugu yeedhayo, ee diinta dib barashadeeda lagugu yeedhayo, ee ilaahay taacadiisa lagugu yeedhayo, waxay ka dhigan tahay kaalayo qofkaagani xagga qalbigaaga ka noolow oo ruuxdaada dhis bay ka dhigan tahay. hadduu qofku ruuxda uu ka dhismana qofkaasi adduunkan iyo aakhiro wuxuu helayaa sacaaduu helayaa sacaadat addaarayn. ana alcasiiz man araada alciza falyutic alcasiiz baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi. aniga ayaa qaaliba baa ilaahay yidhi, oo cid walba anigaa ka qaaliba. ciddii doonay inay qaalib noqotona baa ilaahay yidhi, ciddii guul rabta ee ciz iyo sharaf rabta baa ilaahay yidhi, aniga un hay adeecaan baa ilaahay yidhi, cid kale hadeecina ilaahay adeecin. marka dadka zamankan iyo dadkii hore ee wanaagsanaa maxaa farqi inoo dhexeeya? aayadda qur-aanka alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina. ilaahay casa wajalla ayaa lahaa maantaan diintiina inii dhammaystiray, nicmadaydiina maantaan dushiina ku taam yeelay, islaamnimadaana aniga raalli inigala noqday baa ilaahay yidhi. aayadda qur-aanka markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada dushooda ay ku soo degaysay waxay ahayd xajat alwidaac. fii yowmi carafa nebigu carafo taagan ayaa aayadda qur-aanka nebiga dushiisa lagu soo dejiyey, wa atmamtu calaykum nicmatii, nicmadaydii maanta ayaan dushiina ku taam yeelay. nicmadda saxaabada dushooda lagu taam yeelay tan innaku aan nicmad u naqaano maaha. inagu maanta nicmad haddaan maqallo hebel ilaahay baa u nicmeeyey, heblaayo ilaahay baa u nicmeeyey. marka nicmad uu qofku maqlaba maskaxdeenna waxa markaaba ku soo degdegaysa waa qof maasha allah gabadh dhaqaalay leedahay, aqal weynna way gashaa, nin mansab iyo magac iyo maallana waa u dhaxday. taasaa markaaba maskaxdeenna ku soo dhacaysa. may nicmad maaha taasi. nicmadda adduunyada ilaahay casa wajal cid walba uu siiyaa, gaaladaa ilaahay xaggooda u badiya welibana. laakiin nicmadan qur-aanka uu sheegayo waa nicmat aliimaani waalislaam. iimaanka iyo islaamnimada weyaan wuxuu qur-aanku sheegayo. aayadda qur-aanka maalintay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa dushooda ay ku soo degtay, balin yar baa noloshooda wax ka taabananaa iyo dhegaysta noloshay ku noolaayeen. caaisha radiallaahu canha ummalmu'miniin waxay tidhi bil baa noo bilanaysay, haddana bil labaad baa noo bilanaysay, haddana bil saddexaad baa bilanaysay. waa 60 habeen iyo 60koogii maalmoodoo waxaana soo maraysay aqalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, dheri aanan dab la saari jirin. markaasuu curwa ku yidhi habar yaro de maxaad ku noolaydeen haddii 60 habeen iyo 60 maalmood dheriga dab aanan la saari jirin? maxaad cunayseen oo quud ka dhiganayseen? waxay tidhi atamru walmaa, labada madmadoobaan cunto ka dhigananay tidhi, waa timirta iyo biyaha ayaan ku noolayn bay tidhi, timirta iyo biyaha. walaakiin nabigeennu calayhi salaatu wasalaam jaar fiican oo reer madiine ayuu lahaayo xoolaha irmaan ee caanaha lay nebiga u keeni jireen. markaasuu nebiga caanaha looga maali jiro, caanahaasuu nebigu cabbi jiray. amaa reerihiisu sagaal reer ayaa waxaa soo maraysay 2 bilood oo isku xidhiidhsan inaan dheriga dabkaba la saari jirinba. gurigiisa ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam guriga caaisho maalin soo galay, wuxuu arkay maaragtaanay firaash liif laga buuxiyey oo dul iyo aqalkiisa yaalla. markaasuu nebigu ku yidhi caaisha, firaashkan waa maxay oo halkuu ka yimiday? wuxuu idhi heblaayo reer madiine ayaa noo timiday, deedna firaashkaad ku seexanaysa markay aragtay ayay hadyadkan kugu soo dirtay iyay ku tidhi. markaa buu nebigu yidhi ruddiihi ya caaisha, gabadhaa gogasheeda iiga celi. fawallah ilaahay baan ku dhaartee low shi'tu la ajra allaahu maciya aljabaala adahaba waalfida. haddaan anigu adduunyo aan doonaayo buuraha magaalada maka, buuraha maka iyo buuraha madiine dhexdooda ku yaalla ayaa dahab intoon layga dhigo way garab socon lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. adduunyo aqaladiisa ma taallo,
aayadan qur-aankay ku soo degtana bal u fiirso wa atamamtu calaykum nicmatii nicmadaydii maanta ayaan dushiina ku taam yeelay buu ilaahay yidhi martibaa nebiga u timiday aqaladiisii buu maro wuxuu ka siiyo waayey in yahuudiyu markaa nebigu u tago yidhi intaas saacoo timira isii amaahi buu ka yidhi bisha rajab awalkeedana waan ku siiniye markaa ninka yahuudigii baa nebiga ku yidhi may kuma aaminayee waxaa raxmadu sii haysta iidhib buu ku yidhi balu fiirso hadalka adi haddii dukaanka dariskaagu kugu dhihi lahaa waa meel ka dhac qofkaasi dib dambe dukaankiisa umaad hor joogsateen meeluu ka hadlayana ismaad taagteen waxna kamaad gadateen bal xidhiidhka ayaad u jari lahayd waa adigaya aniga maqaamkaaga baleeg nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam bal maqaamka ilaahay uu gaadhsiiyana dib ugu noqo u fiirso waa nebi maxamed nebi yaasiin waalqur'aani alxakiim innaka la min almursaliin calaa siraatin mustaqiim waa nebiga ilaahay casa wajal risaaladiisa uu ku dhaartay markay gaaladu ay yidhaahdeen rasuul adigu ma tihid rabbulcaalamiinka ayaa yidhi innaka la min almursaliin innaka adigu yaa muxamedow la min almursaliina mursaliinta mid ka mid a ayaa tahay baa ilaahay ku yidhi qul kafaa billaahi shahiidan baynii wa baynakum ilaahay baa aniga iiga maraga inaka iyo ininka dhexdeenna ilaahay baa marag inoo ah inaan anigu nebi rasuul aanahay ilaahay baa marag ii adhe buu nebiga ilaahay ku yidhi rasuulkiisa markhaati ilaahay baa kuugu filan wa innaka la calaa khuluqin cadiim abuur weyn baad ku sugan tahay baa nebiga lagu yidhi oo ilaahay baa casa wajalla nebigiisa ku sheegay inuu yahay nebiga khalqiga alla abuuray ugu sharafta badan ee ugu dabeecadda fiican leh nebigaas maqaamka ilaahay uu gaadhsiiyey waa nebiga keliya ee qur-aanka ilaahay jalla wacalaa meel ilaahay iskuma sheego ilaa nebi maxamedna magaciisa waa lagu lifaaqaa yaasiin waxaa ilaahay qur-aanka uu ku yidhi waman yushaaqiq illaaha waarasuula baa lagu yidhi آمنوا بالله ورسوله كفروا بالله وبرسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بالقرآن كأفر صدى ومن يطع الله ورسوله إلهي قفك أطيع رسولك سأطيع إلهي قفك ما ركتان عاصية رسولك سنة عاصية إلهي قفك الرميي رسولك سنة الرميي قرآن كلما كان الرب إلهي رسولك سا وآية مقامك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيا إلهي قارسيي نبي مقامك ilaahay uu gaadhsiiyey ayaa lagu leeyahay timir yar kugu aamini mayne waxaa raxmadu sii haysana noo dhiibaa nebiga lagu yidhi uu ka soo noqday nebigu isagoo murugsan oo leh wallaahi innii la aamiinu man fi lardi wala aamiinu man fi samaa yaa ayuha arajulu kan yahuudigow haddaad adigu timir yar adigu aamini weydoo tidhi waxaan raxmadu haysta ii dhib adigu tidhi aniga samadaa layga aaminay arlada khalqiga joogo dhanna waa layga dhex doortay inaan risaalada rabbulcaalamiinka aan gaadhsiiyana waa laygu aaminay gurigiisii buu nebigu ku noqday gurigii caaisha isagoo murugaysan martidiina masjidka u joogto wuxuu siiyana ma hayo jibriil calayhi salaam ayaa nebigiinna ku soo degoo yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almathanii waalqur'aan alcadiim laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum walaa taxzan calayhim waqfid janaaxaka lilmu'miniin walaqad aataynaaka sabcan min almathanii yaa muxamed ilaahay baa ku leh adiga waxaan ku siino kugu deeqnay qur'aanka cadiimka iyo suuradda 7 aayadood ee ammaanta ee soo noqnoqonaysa mar walba waa suurat alfaatixa weeyaane ayaan ku siino kugu deeqnay baa ilaahay nebigiisa uu ku leeyahay laa tamudanna caynayka baa ilaahay indhahaaga ha u jeedin xagga kuwaas kuwee alyahuud waannasaara kuwaan adduunyada nolosha yaree adduunyada mataacu dunyaa qaliil mataacu dunyaa nolosha yaree adduunyada raaxada gaaban kuwa aan siinay baa ilaahay ku leeyahay indhahaaga waxba xagga ha raacraacinine nicmadii daa'imka ahayd nicmadii weynayd nicmadii lagu liibaanayey nicmadii ilaahay loogu dhowaanayey nicmadii adduunkan iyo aakhira aad ku liibaanaysay adaa haystaa nebiga lagu leeyahe nicmada hoos u eeg oo qadari baa lagu yidhi suuratulfaatixa ayaan ku siinay iyo qur'aanka cadiimkan ku siinaa nebiga lagu yidhi waxaan iyaka siinay waxba ha eegin baa nebiga lagu yidhi adduunyadu ilaahay agtiisa garabkanica hadday la qiimo tahay kaafir nicmadda ilaahay inkiray oo daboolayna kabasho biyo lagama waraabiyaan ukhti lmuslima
walaashayda muslimadda dhaldhalaalka adduunyada ha ku degmin لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم بلا حيد لا يغرنك يا كدك مما نبي قال له يعني نبي محمد كدك مما يو هذا الكوا سرباب أدق يعني يا لولا جدا أو لين ليه حي إنكو يا أمة المسلمة أمة المسلمة دا إسلام نمدي رسالة النبي محمد لقو دقيو نعمتي وين دينك هايسته قال هذا وحا عاصيني يقدونك الدنيا تدشيدا كل بناع وقدوميان هكودك من با النبي قال لقو يدي أدقنا لقو قول يا حي الدنيا دا إنير بيكون راحيسنا يان قال هذا ماشي كدام بين دونانا وجهنم بايلا حيدين meesha gogashoodu ay taallo ay ku hoyani doonaan ee faraashka loo dhaxdhigay ay ku noqoni doonaan ay ku laami doonaan waa jahannam meel loo noqdana meeshaas ugu baas badan baa ilaahay ugu baas xun ha eegin baa lagu leeyahay marka adduunyada ha eegin marka nicmadii innaka haysana laakiin Allah ayna tusamaanta Aisha radiyallahu anha markii rasuulkeenu alayhi salaatu wasalaam iyadoo 19 jir uu nabigu ka intiqaalay adduunka 9 sano ama 10 sano nabigu Aisha la noolaa baa la yidhi 50 sano nabi maxamed bay ka dambaysay 50 sano ayay nabi maxamed ka dambaysay rasuulka ilaahay baa ka geeriyooday abubakar oo aabaheeda haddana in yar muddo yar ka dambeeyay أبو بكر النبي ولا اسكو أقاسي عمر الفاروق رضي الله عنه خلافة مركو هيي أتبو عايشة وأديك جرو ورالي قلين جري مسألة كستوكو أتكاتن عايشة وتجرو ويدين جري لأن عايشة رضي الله عنها علم بدن بي أمد أوريبتين النبي كريبتين خصوصا علم المعاشرات يا علم الأحكام علم علوم بدن أي النبي كوي ليس عليه الصلاة والسلام ابن عباس مسألة مركي لو ويديو أيوه نجر عايشة ما سوى ويديسن ها ما حين نتري صدا وصدا يدو نتري ويان ابن مسعود بالله تقع مسألة ده نوجا جواب عايشة ما وتكتنا ما ويديسن ها ما حين نتري صدا وصدا نتري ويان ويا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ذاتك أيضا وجود جعلا أكتيدن النبي وأكون أنت عليه الصلاة والسلام قري جدينا والله قاسين قريدنا وروضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أقل كيغ أبو نبي قولي منبر كيغ دحدودا بارها جنة كمدة آياها هاتي لذلك عائشة رضي الله عنها وحاي كل عدي أقل كيدو وهلكي نبي محمد وكدو غيهي منبر نبي كخد بديني يا عائشة قريدة دحديدنا روضة من رياض الجنة آياها هاتي عمر الفاروق u yimid Aisha isagoo nabad qabo caafimaad qaba dadna wuxuu ku yiri hooyo waxaan ku weydiisanayaa haddaan ka horeeyo xagga geerida ajasha waxaan ku weydiisanayaa inaad ii idanto labadayda saaxiibagtooda in laygu duugo laygu aaso marka bay tiri waa hagaag haddaad iga horeyso waan ku hanayay waan ku daystay waan ku idmay عمر الفاروق رضي الله عنه وادوقتهين isagoo salaad tukanaya oo rakacadii hore tukado umada tujiyay oo rakacadii labaad u soo kacay ayaa la mudo muddo toori la galiyay ilaa naftu ay ka dhacaysana ma aragtaan sankaraad buu ha u dhig baxay marka naftu ay ka dhacaysay ayuu indhaha kala qaaday ibn Abbas يا إنكيس عبد الله بن عمر يا علي بن أبي طالب أنت أصلا مركب كسو أرضو قبتي وحولي أنا ما أنت الدنيا ويقدم بيسا وأنا سخير لأنا كل انتي إن مقالة مدينة أن كل شهيدو وإلهي درتي عدو يقدلو إلهي بان كبر يو إلهي دعادي بو يقبله عائشة رضي الله عنها أقل كذا يهرنقا ميت كيغا مركات قادان نعش كذا يقول ردان أقل كعائشة يهرجوجية قالوا إجاز رخصتي ويدية إن لبدايدي صاحبكتooda lagu aaso intii aan caafimaadka qabina waan weydiistay way idantay hayde si walba way dhici kartaa inay loodana way dhici kartaaye iga idan qaada buudi markaas nafti markay ka dhacday nacashka la soo saaray Umar ayaa aqalkii Aisha la hordhigay magaalada Madiina qof ma joogo
إلا عمر وأوي رضي الله عنه. لماذا؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكي عدالة إسلام ماذا الدنيا كو عمري أيا ما أنت كجيريودي مقالة مدينة أقل والبا oday iyo inan iyo islaan iyo maaratan inan iyo gabadh intuba waa la geeriyay waa la ooyaya waxa